wasiirka waxaan ka codsanayaa intuu dawladda ku jiraayo ilaahay yaqaan laakiin intuu ku jiro inuu ku dadaalo ciidankan inuusan ka bixin gacanta wasaaradda gaashaandhigga waxaan maqlaa wasaaradda heblaa loo dhiibaa wasaaradda heblaa loo dhiibaa wasaaradda heblaa loo dhiibaa wasaarad qaban karta oo ciidan leh wasaaradda gaashaandhigga ku jirta weligiina wasaaradda gaashaandhigga u ka tirsanaa intaa kadib waxaan leeyahay ciidanka baddow dalkiina difaacda baddiina difaacda dawladda maanta jirta waa idin heellan tahay wasiirkii waa noo yimid taliyihii waa yimid taliyaashoona waa joogaan waa laydin jecel yahay inaad hor u kacdaan baa la rabaa dalkii inaad difaacdana la rabaa taliya waa kaa taagan xataa dhulka ma fadhiisanahay kulli waa wada taagantihiin difaacaad u taagantihiin iyo dalkaan in hore loo waa idinkugu hambalyaynayaa sanad guuradiinna 53 waxaan rajaynayaa 53 sano kale inaad wada joogtaan laakiin dalkaana uu isbeddelo ayaan rajaynayaa idinka iyo xaasaskiinna iyo ilmihiinna iyo kuwa kaloo ciidamada Soomaaliyeed khayran u rajaynaa sanadan iyo sanadeedaba siyaadan u rajaynaynaa wasiirka waxaan leenayaa taliyaha hawshiina alla idinku guuleeyo awaya maalin waxay u soo jeedaan waxaan sheegayo waa xusiisin maana aniga cilmi cusub uma sheegayo dadka ilaahay wuxuu yidhi wadakir fa inna dikra tanfacu almu'miniina xusiisina iga tahay idinkana waa idin xusuusaa wax laydinka rabo dawladdana waa xusiisinaa halkay ku jirto mar kale waxaan idin leenahay kullu caam wa antum bikhayr meeshii laydinka fili jira ha laydinka helo meeshii laydinka sugay hal ku fikira in Soomaaliya dhulkeeda ka soo wareegtay 53 sano ka wareegaas 53 sano ciidanka badda wuxuu ahaa ciidamada ugu xoogga badan ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku jireen waxay difaaci jireen xeebta dhererkeedu yahay 3333 waxay lahaayeen barooyin waxay lahaayeen saldhigyo waxay lahaayeen dugsiyo tababar waxay lahaayeen qalab oo dagaal maraakib dagaal diyaarad marka insha Allah waxaas waxay naga raaceen burburkii waddanka ka dhacay dib baa mar dambe loo aasaasay waxaan hadda gacanta ku haynaa doomahan oo hortiina yaala oo ay dawladda Talyaaniga noogu deeqday bishii Agoosto soo dhaafnay dawladda Talyaaniga noo keentay 4 doonyood iyo doonyo kale ayagana dawladda Turkiga noo keentay kuwa badda ku jiraba ah marka insha Allah bilow fiican baan haysanaa waxaan ugu talagalnay marka tababarkooda ay dhameystaan oo ciidanka iyo ay isbartaan iyo doonyaha iyo badweynta inta ay isbartaan in ciidankaasu ka howlgeli doono insha Allah meelaha muhiimka ah iyo waxyaabaha nagu soo xadgudbaan inay ka ilaaliyaan baddeena Soomaaliya ciidanka badda oo hadda hortiina taagan mudane wasiir mudane taliye waxay kala degan yihiin 3 xero oo magaalada Muqdisho ku kala taala ay kala degan yihiin marka inta waad ogtihiin waxaan ku bari jirnay muusika iyo gaardi iyo waxaan ku mari jirnay si sharaf la ku mari jirnay maanta inaan meesha soo istaagno aan wajigeena soo istaagno waxaan u kalafay meel aan ku gaardina ma hayno meel aan ku kala bixino ma hayno doomaheenu waxay isticmaalaan dekadii weynada ee Muqdisho dekad noo gaara ma hayno marka kuwa maanta waxaan u dhigi weynaa maraakibta faraha badan ee ku soo xiranaysa ama darbigeena ku dhufataa meel lagu kala xiran ma laha marka dawladdu waxaan ka codsanaynaa inay noo banayso ama na tusto meel aan ku xiran karno inta kale noo soo socota ee adduunkan ka rajaynayno inay mar dhowna soo gaaraan mudane wasiir mudane taliye waxaa meesha ka jira ciidanku tababar fiican bay qaateen tababar oo waxay qaateen badda ah waxay ku qaateen kuliyaddan ku taalla ee meeshana macadkan ku yaala xamar oo Turkiga ay noo sameeyeen waxaan 2 dafcadood nooga soo baxday Djibouti waa ku soo qaadanay meesha yiraahdo Ishak Turki waa ku soo qaadanay marka tababarada intaas way noo socdaan iyo sidii maartay qalabka noo dhibaan wax fidileen laakiin dhibaatada taagana waxay tahay qalabkan ilaa Agoosto doomaana la sii martaana yaalan inta lagu kiciyaa waa lagu ilaaliyaa because meel la dhigan ma laha bad la dhigan ma laha badii oo dhan dekedan kilan ka haysanaa marka ilaahay ayaan mahad celinayaa ilaah baa mahad iska leh marka xigana waxaan leeyahay ciidanka badda iyo difaaca xeebaha hambalyo leeyahay adinka iyo inta hadda aan goobtaan joogin iyo xaasaskiina iyo carruurtiina iyo guud ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga waa isku daraa intaas oo dhan
halkan waxaa laga taariikheeyey ciidanka badda siduu ahaan jiray iyo sida maanta uu u yaallo markaad fiiriso waxaad leedahay waa maalin muxuu ahaa yacni murugale weeye meesha ay wixii ay shalay ahaayeen iyo waxa maanta ay yihiin laakiin ma rasho dhigayno oo waxaan qabnaa inay muxuu ahaa dib ka hagaagi doonto haddii ilaahay yidhaahdo wakhtiyaal waxaa jiray aysan ciidanka baddu soo imaan jirin oo aan la arki karin oo aysan muxuu ahaa meelay xataa istaagaan intaa yartaa oo kale aysan isugu imaan karin waa la soo maray sanado badan oo haddeer wixii ka dambeeyey burburkii yacni dawladdii dhexe saasay jirtay haddana maanta waa kuwan ha yaraadeen oo tiradooda ha yaraato hubkay haystaan ha yaraado xeryaha iyo meesha ay joogaan ha yaraado tababarkoodu ha yaraado laakiin haddana rajaa muuqanaysa rag dhallinyaro ah oo halkaan hadda horteeda taagan muxuu ahaa hadday un muddo sii joogaan waxaa dhici doonta haddii ilaahay yidhaahdo in mar kale ay soo laabtaan oo ciidanka badda iyo difaaca xeebaha inuu noqdo midkii shalay iyo mid ka sii xoog badan hal waa ognahay yacni dad baan qabin rajadaas inay jiri karto oo le ciidan bad looma baahna muxuu ahaa ha la iska dhaafo meeshaan muxuu ahaa difaaca muxuu ahaa xeebaha badda ha la yidhaahdo coastguard ha la yidhaahdo waxaasaa la wadaa laakiin waxaan hubnaa haddii ilaahay raalli ka dhigo inay dowladda soomaaliya iyo dowladdan hadda jirta iyo kuwa kale oo imaan doona inay garan doonaan marka waxay la tahay burburka dhacay oo Soomaaliya gaaray kaliya ma aha waxa burburay saanada iyo waxyaabaha materialiska ah u jeedna ma aha waxa burburay waa niyadda waxa burburay waa qalbiga waxaan u burburnay as a psychology ahaan ayaan waxaan aaminay in wax nala taramo ogiye inaan anagu waxba tari karin ayaan aaminay ilaahay quraanku wuxuu ku leeyahay inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim culimadu waxay noo sheegayaan tagyiirka isbeddelka inuu ka imaanayo nafta qofka adigu haddaadan isbeddelin cid kale oo isbeddel ka sugaysid malaha waxay ila tahay annaga aan isbeddelno khilaaf ayaa hareeyay siyaasaddaanada hadday amniga noqon lahayd hadday dhaqaalaha noqon lahayd meel walba dib u dhaca nagu dhacay 27 sano ayaa waxaan ku jirnaa burbur taqriiban waa qarni marka la yiraahdo waxaan sii maraynaa waxaan ku sii dhownahay nus qarni 27 sano already waxaan gudubnay saddex meel ka mid ayaan dul marnay waxaan idin leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inta ay yihiin hal qof walba ciidanka ka mid ah maanta hal dhagax haduu soo qaado hal maalin ama saacad gudood wuxuu dhisi karaa intaasoo xarumood oo ciidanku dhisi karaa nin walba hal dhagax haduu soo qaado bal ka warrama haddaan Soomaalida inteeda kale aan kaalmaysano oo ay ugu horeyso civil society oo habeenii maalin taagan oo qaylinaya dhahaya maxaa la yiraahdaa waxaan diyaar u nahay inaan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed يعني فرح كستان نقضي بدها نقضي عركان نقضي والله شقينينا وحي لو باهن yahay waxaan idin sheegayaa isbedelka annagaana laga sugayaa hal laga baxo wax la yiraahdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xoog buu lahaa ciidanka badda xoog buu lahaa ciidanka cirka xoog buu lahaa rag baa ka soo shaqeeyay taas adaa laga rabaada xoog ina u sameeysid mideedii kalamadaan idin sheegayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku heshiinay in la dhiso guddi iska wax u qabsaa guddigaasi wuxuu ka koobmi doonaa saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed oo aqoonta u leh dhinac walba kaliya waxaan ka wada dhismooyinkii iyo xarumihii ciidamada ay lahaayeen oo ay ka mid tahay xarumihii uu lahaa ciidanka badda in dib u dhis lagu sameeyo ciidankaas guddigaas wuxuu noqon doonaa guddi iska wax u qabsaa guddiga wuxuu kaalmaysan doonaa Soomaalida inteeda kale oo dhan u kaalmaysan doonaa si xarumihii loo dhiso niyadda waxaa gelinaysaan aad ku soo toosaysaan niyaddaadi geli dad baa la yidhi ma xasuusniye tabardarre meel ay ka gaareen ayaa waxay ku yidhaahdeen nabigooda rasuulkooda waxay ku yidhaahdeen hana loo weydi allaahuma anzilnii maa'idatan min assamaa allaahuma
أنزلنا أن أمالينا يا جماعة أنزلنا اللهم أنزل مائد أنزل علينا مائدة من السماء يعني أنزل علينا مائدة من السماء إن أيضا تنقل ضد علماء الجوجي هالصحيح لدودي إن ujeeddadeeda هذا waxay tahay bal ninka weydiistay raashin la diyaariyay in looga soo dejiyo samada oo wixiisi ay bisal yihiin loo keeno inuu cuno bal xaguu u socda annaga saas yaanan noqonin oo diyaaradii kor maraysa baanan dhihin raashin ay noo wada gaarigii socda baan yaanan dhihin wuxuu ka yimid ee wadamada dibadda dawladahana kaalmeeya aan ku fikirno inta ay haystaan waa haysanaa dhul adduunya waa haysanaa cir hadday tahay waa haysanaa aan idin leeyahay ciidanka baddanka Soomaaliyeed waxaan dib mariyay hambaliyadiisa waan idin hambaliyaynayaa idinka iyo qoysaskiina sanad guurada labaad waxaan rajaynayaa in midaan mid ka wanaagsan meeshan hadda aan ku kulannay meel ka qurux badan doomaha haddaan u jeedo doomo ka qurux badan ragga hadda horteyda taagan oo ciidanka oo darajooyin kala gedisan leh ayagoo noocan aan ahayn inaan sanadkan sanadkiisa ciddii ilaahay cimrigeeda gaarsiiyo aan ku ciidno aad iyo aadaan idinku hambaliyaynayaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo saxaafadda meel walba way taagan yihiin runtii dagaalkii laga rabay way wadaan waxaad u malaynaysaa meesha hadda aan fadhinno oo aan u jeedo say tahay idinkuna aad u jeedaan ay waxay ka soo saarayaan meel aad u qurux badan waddankii waxay ka dhigeen waddan aad u qurux badan intaasi keliya kuma eka fariimaha ay gudbinayaan waa fariimo soo jiitay dad badan oo ka mid ah dadkii diaspora ah waddanka hore uga tegay dib inay ugu soo noqdaan damacna uu ka galo inay kartidooda iyo aqoontooda ay dib ugula soo noqdaan Soomaaliya dib u dhiska ka qayb galaan